waxaa sii xoogaysanaya tuhunka ku aadan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu doonayo in uu isku sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada la qorsheeyay 10 bisha Oktoobar ee sanadkan. Rooble ayaa dhowr mar sheegay inuusan ahayn musharax, hase yeeshee tallaabooyin uu qaaday dhawaanahan ayaa sare u qaaday warar maalmihii ugu dambeeyay laga soo xigtay xubno isaga aad ugu dhow. waxaa ugu dambeeyay habraacii doorashada oo ay isku raaceen isaga iyo madaxda maamul goboleedyada oo awoodda maamulka doorashada siiyay madaxda maamul goboleedyada, halka uu Rooblena gacanta ku dhigay maamulka doorashada xildhibaanada waqooyi iyo sidoo kale kuwa banaadiriga. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale bilihii ugu dambeeyay aad u dhisayay xiriirka arrimaha dibadda si uu magaciisa sare ugu qaado uuna u eego suurtagalnimada ah inuu taageero heli karo. waxa uu booqday Sacuudiga, UK, Masar iyo sidoo kale Kenya, waxaana la filayaa in uu mar kale ku laabto Sacuudiga iyo suurtagalnimada inuu tago dalka isu taga Imaaraadka Carabta. xog heshay Israac TV ayaa sheegaysa in hamiga Rooble ee sare u sii kacaya ay ugu wacan tahay cadaadiska imanaya xubno siyaasiyiin beeshiisa ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan beesha caalamka. marka la eego sida ay isugu mashquulsan yihiin musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale kalsooni siinta madaxda maamul goboleedyada dhinaca awoodda doorashooyinka, ayaa beesha Rooble waxaa lagu soo waramayaa in ay rumaysan tahay inuu yahay fursad kale oo ay markaa xilka ku heli karaan, iyadoo musharaxiinta kale ee beesha aysan haysan wax fursada oo muuqda. sidoo kale wakiilo ka tirsan beesha caalamka ayaa lagu soo waramayaa in sababta ay Rooble uga cadaadinayaan inuu xilka raadiyo ay tahay inay ku jabiyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay u arkayaan nin mayal adag oo aan la marsiin karin danaha ay iyagu dalka ka leeyihiin. wakiilada caalamku waa ay ogyihiin in Rooble uusan rajo lahayn, hase yeeshee waxay is-sharaxaadiisu u arkaan inay dhaawac weyn ku tahay madaxweyne Farmaajo. waxaa sidaas Israac TV u sheegay xildhibaan codsaday inaan la shaacin magaciisa. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhankiisa la rumaysan yahay in cadaadisyadan ay ku dhaliyeen in haddii uu si wanaagsan u hago doorashada xildhibaanada soona celiyo xiriirka dalalkii saaxiibka la ahaa Soomaaliya ee uu arkayo in uu jaray madaxweyne Farmaajo inay gacan weyn siin karto. si kastaba ha noqotee musharaxnimo kasta oo Rooble ku dhawaaqo hadiiba uu sidaasi u go'aansado waxay imaan doontaa oo kaliya marka la soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada amaba lagu dhawaado.